sanadkan geedi socodka doorashada ee Soomaaliya waxaa lagu dooran doonaa xubnaha federaalka ah ee baarlamaanka xiga. xubnaha aqalka cusub waxa ay cod u qaadi doonaan musharaxiinta madaxweynenimada. geedi socodka sidan ayuu u shaqayn doonaa. baarlamaanka xiga waxa uu ka koobnaan doonaa aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka oo sidoo kale loo yaqaano aqalka hoose. xubnaha golayaasha maamul goboleedyada waxa ay dooran doonaan 54 xubnaha aqalka sare. golaha shacabka ama aqalka hoose hannaankiisu waxa uu ka bilaaban doonaa koox madax dhaqameedyo 135 ah kuwaas oo soo xuli doona 275 kooxaha doorashada. koox walba oo wax dooranaysa waxa ay u codayn doontaa mid ka mid ah 275 kursi ee golaha shacabka. waxaa jiri doona 275 koox oo doorasho. koox walba waxa ay ka koobnaan doontaa 51 ergo. guud ahaan 14,025 qof oo Soomaali ah ayaa ka qaybgeli doona kooxaha doorashada. waxay isugu imaan doonaan ugu yaraan 6 gobol oo dalkoo dhan ah si ay codadkooda u dhiibtaan. marka qaybta geedi socodkan dhammaado 329 xubnood ee baarlamaanka cusub waxa ay si rasmi ah ula wareegi doonaan kuraastooda. tallaabada xigta kadib dhaarinta xubnaha cusub ee baarlamaanka waa in dhammaan 329 xubnood ee aqalka sare iyo golaha shacabka ay doortaan madaxweynaha. tani waa xilli dhab ahaantii muhiim u ah taariikhda Soomaaliya.